waxaan idiin wadaa dhammaantiin fiidiyow aad uga wada heli doontaan. Dad badan oo idinka mid ah ayaa waxay isoo weydiiyaan mar kasta sideen ku baran karaa luqadda Jarmalka. Fiidiyowgani wuxuu jawaab fiican u noqon doonaa qof kasta oo raba in uu barto luqadda Jarmalka oo raba in uu guul ka gaadho ama si wanaagsan u barto. Waa kuwan 9 qodob oo idinka caawinaya in aad luqadda Jarmalka waqti yar gudihii aad ku baran kartaan wax fara badan. Talada koowaad ee aan idin waxay tahay ku hadal luqadda Jarmalka. Haddaba su'aashu waxay tahay sideen uga hadlaa? Waa kuwan talooyin iyo tusaalayaal kaleba. Sida ugu wanaagsan ee qof luqad ku baran karaa waa in uu ku hadlo. Qof kasta wuxuu luqad bartaa intii uu ku hadlayo uun. Haddii aad rabtid inaad luqadda Jarmalka si degdeg ah ku baratid, waa in aad ku dhaqaaqdaa waana maalin walba. Waxaan ka wadaa inaad ku dhaqaaqdaa in aad ku hadashid maalin walbana aad ku hadashid, aad isticmaashid ood adeegsatid intii aad garanaysid. Ma aha waxaanad garanayn. U bax bannaanka oo la kulan asxaabtaada ku hadla luqadda Jarmalka, ama asxaabta aad isku galaaska tihiin ama kuwa aad taqaanidba. In aad la kulantid ood la sheekaysatid waxay kaa caawinaysaa in uu hadalkaaga wanaagsanaado kow, iyo in uu maqalkaaga luqadda aad maqlaysid ay wanaagsanaato. Qodobka labaad, u isticmaal Jarmalka nolol maalmeedkaaga. Yacni maalintaada u isticmaal. Sideen ugu isticmaalaa maalinteeda haddaba? Aynu eegno tusaalayaashan kale. Isku day inaad luqadda Jarmalka nolol maalmeedkaaga dhex gelisid oo aad maalintii isticmaashid. Haddaba waxaad isweydiinaysaan sideen u dhexgeliyaa maalintayda ama maalintii u isticmaalaa Jarmalka. Ku fikir luqadda Jarmalka, yacni markaad fikiraysid isticmaal luqadda Jarmalka, wax badan ayay kaa caawinaysaa. Inta aanad habeenkii seexanin, isku day in aad isweydiishid su'aasha ah Was habe ich heute gemacht? Maxaan sameeyey maanta ama maanta maxaan soo qabtay? Adigoo naftaada su'aasha weydiinaya waxaad ugu jawaab celin kartaa af Jarmal adigoo odhan kara Ich bin heute Morgen 7 Uhr aufgestanden. Saaka 7 baan kacay. Weydii naftaada oo ku fikir, yacni maskaxdaada weydii maxaan maanta sameeyey. Tusaale ahaan, maanta haddii aad kacday waxaad odhan kartaa Ich bin heute Morgen 7 Uhr aufgestanden. Saakaan kacay. Dad wax akhriday waxaad odhan kartaa Ich habe gelesen. Waxbaan akhriyey. Haddii aad wax hagaajisay waxaad odhan kartaa Ich habe die Küche aufgeräumt. Waxaan nadiifiyey ama hagaajiyey kitchada. Haddii aad wax baratay ama af Jarmal baranaysayna waxaad odhan kartaa Ich habe Deutsch gelernt. Waxaan bartay af Jarmal. Waan hubaa wax badan ayay idinka caawin doontaa haddii aad su'aalahan marka aad keligaa tahay habeenkiisii seexanaysid aad maskaxdaada weydiisid oo af Jarmal iskugu jawaabtid adigoo laftirkaaga. Qodobka saddexaad, aflaamta iyo kuwa musalsalka ah. Waxaa jira aflaam badan iyo kuwo badan oo musalsala oo taxane ah ayaa jira. Waxaa jira filimaan badan oo musalsal oo taxane ah iyo waxaa jira filimaan badan oo caadi ah. Fadlan isku day in aad daawatid aflaamtan. Kolba intaad daawato ayaad fahmi doontaa. Ma aha inaad erey walba ka taqaanid filimka aad daawanaysid. Isku day inaad fahantid keliya wuxuu filimku ku saabsan yahay. Daawo filimaanta leh ciwaan hoosaadyada Untertitel, filimaanta halka hoose qoraalka ku leh. Isku day inaad kuwa akhridid. Isku day inaad ereyada qaarkood haddii aad garan weydid aad meel ku qoratid oo hadhow toole weydiisid qof kasta oo yaqaana luqadda Jarmalka ama qof ku hadla luqadda Jarmalka. Qodobka afraad, akhri buugaagta ama akhri buugaagta af Jarmalka ah. Waa kuwan 2 talo oo aan idin lahaa. Akhri maalintii ugu yaraan 30 daqiiqo. Isku day maalintii in aad wax akhriyi kartid 30 daqiiqo.
kor u akhri waxaad akhriyaysid si aad adigu isku maqli kartid, si aad adigu in aad sax ah u akhrinaysid iyo in kale aad isku maqli kartid. ma aha inaad buug kasta akhridid, kaliya waxaad akhridaa wixii adiga aad xiisaysid. buuggu doona ha ahaado wixii xiisahaaga. haddaba su-aashu waxay tahay, maxaan akhriyaa? xaggeen ka akhriyaa? sideen u helaa waxaan akhriyayo? waxaa jira websayto badan oo ka hadla luuqadda Jarmalka oo mar walba iyo waxyaabo badan soo geliya. waxaan aniga haddaba idinkula talin lahaa laba meelood ama laba shay ood akhrisan kartid. kow, waxaan idinkula talin lahaa in aad raadisaan website-ka magaciisu yahay Deutsche Welle. haddaba website-kan Deutsche Welle waxaad ka helaysaa kumanaan qoraallo ah, dhegaysiyo, aflaam la daawanayo, filimaan daawasho ah oo af Jarmal ah, laga bilaabo A1 ilaa iyo C1 wixii ah way daawan karaan. wuxuu qof kastaa ka heli karaa wax walba oo uu qof kastaa xiiseeyo, haddii filimaan noqoto, qoraallo noqoto, siyaasadda noqoto, wararka noqoto. dhammaantood waxay ku hadlayaan luuqadda ama lahjadda ay ku hadlayaan darajadeeda way A1 hadduu qofku yahay uu ka helayaa, B1 hadduu yahay uu ka helayaa, C1 hadduu yahay uu ka helayaa. haddaba fadlan website-kan booqo oo ku dhufa linkiga aan halka hoose idiisoo dhigi doono. waad ka heli doontaan dhammaantiin wax badan amba waad ka faa'iidi doontaan, waana lacag la-aan free ah. haddii aad garan weydaan website-kan, fadlan iigu soo qora dhinaca commentiga. haddii aad jeclaataanna iigu soo qora dhinaca commentiga. qodobka labaad ee kula talinaya inaad akhridaan waxay tahay, akhri buugaagta sheekada ah. af Jarmal waxaa loo yaqaan, waxay leeyihiin laga bilaabo A1 ilaa iyo C1. isku day sidoo kale in aad akhridid buugta caruurta. wax badan ayaad ka faa'iidi doontaa ee af Jarmalka ku qoran. Jarmalka haddaad joogtaan ama ku nooshahay, ka soo qaado buugtan maktabadda ama Staatsbibliotheka. waxaanad leedahay, waxaan u baahanahay roman Bücher. haddaba kobci ereyadaada ama waxaa loo yaqaano Wortschatz. baro ereyo badan ood baratid waxay kaa caawinayaan in aad wax badan fahantid. haddaba waxaad samaysataa buug u gooni ah ereyo kugu cusub oo dhan in aad ku qortid. ku qor maalin walba buuggan ereyada kugu cusub, kuna ag qoro af Soomaali amba luuqadda aad markaas adiga aad fahmaysid. waan hubaa wax badan ayay ka caawin doontaa. qodobka 5, qor qoraal ama qoraallo fara badan qor. Schreibe Texte ab. haddaba sideed u qori kartaa qoraallo? raadi qoraallo internetka ama buugaagta oo u qor jumlad ama Satz für Satz. inaad qortid waxaad ka faa'iidaysaa. kow, waxa kugu fiicnaanaya qoraalkaaga, waxaanad ka baranaysaa ereyo badan. erey kastoo cusub ood ka baratidna ku qoro buugga aad ugu tala gashay ama meel gooni ah ku qoro si aad u xasuusnaan kartid oonad u ilaa. qodobka 6, jadwal dejiso ama u samayso plan kuu gooni ah ama jadwal kuu gooni ah. ka fikir, goorma iyo intee leeg ayaan bartaa? waa muhiim in aad ilaashatid qorshaha haddii aad qorshe dhigatid. 2, waqtiga aad baranaysid adaa leh go-aankeeda sidaad jeceshahay, laakiin waa in ay joogto noqotaa. haddii aad jadwal dejisanaysid, tusaale ahaan waxaad odhan kartaa Sabtida waxaan baranayaa inaan buugta akhriyo iyo inaan Jarmal dhegaysto. waxaad odhan kartaa Axadda waxaan daawanayaa filimaanta af Jarmalka ah. waxaad odhan kartaa Isniinta waxaan qorayaa qoraallo. saas ayaad u dhigan kartaa jadwalkaaga. xigta 7, isticmaal internetka. waxaa jira meelo fara badan oo laga barto luuqadda Jarmalka, tusaale ahaan YouTube-ka amba website-dada amba Facebook-ka, meel uun. waxaan ku leenahay Instagram-ka page uu magaciisu yahay baro af Jarmalka 1. haddii aad soo follow garaysid, waxaan soo geliyaa oon hadda kadibna aad u soo gelin doonaa
ereyo badan, waxyaabo badan oo afka Jarmalka ku baxaya iyo waxyaabo badan oo luqadda Jarmalka ku saabsanba. Haddii aad xiiseynaysaan, soo follow gareeya kusoo biir. Qodobka 8aad ee xiga wuxuu ku odhanayaa isku kalsoonow, oo yacni kalsooni ku qab naftaada, waxba ha ka cabsanin. Haddaba waa wax fiican in aad baranaysid luqadda Jarmalka, sidaa darteed ha ka cabsan in aad khalad samaysid adigoo ku hadlaysid luqadda Jarmalka ama qof la hadlaysid, amba ha ka cabsan inaad qof wax ku tiraahdid. Kula hadal dadka kale Jarmal badan intii macquul ah. Intii aad awoodid qof kale oo af Jarmal kugula hadlaya kula hadal, ha ka cabsan inaad khalad samaysid. Weydii dadka kale hal erey haddii uu kugu adkaado amba aanad garanayn sida loogu dhawaaqayo, dheh ereygan ma garanayo macnihiisa muxuu noqon karaa, ama ereygan sidee loogu dhawaaqi karaa. Af Soomaali ha ku weydiinin qof af Jarmal badan ku weydii. Wax badan ayaad ka faa'iidi doontaan. Qodobka ugu dambeeya ee 9aad wuxuu ku odhanayaa ha isdhiibin. Gib nicht auf. Waxaa dhici karta inaad ka daashid ama nacdid luqadda Jarmalka, laakiin guul kasta waxay u baahan tahay in aad u samirtid ood samir u yeelatid. Mar kasta oo aad ka xaajistid u sheeg naftaadu inaysan isdhiibin, dheh ha isdhiibin ee hore u soco.